cadaalad lagu dhaqo inaanan noqon militaris isagoo kala kasmada ku hogaamiyo maxkamadda ay noqoto in dhammaan sanadooyinka dawliga sida ay u kala sarreeyaan ay nuuga shaqadiisa ugu madax banaanaan taasoo haddoo mid dadkoo dhan ay talinayaan taas waxay badbaadinaysaa aniga badbaadinaysaa inaan khaladaad gelin idinkana way badbaadinaysaa marka ugu horreyn kolle waxyaabaa ii qodaysna oo ahaa qodoinsaanka dhow in horta waxa laga qabto inaan iscafino waa muhiim inaan wixii hore ee dhacay ka tagno waa muhiim laakiin haddana dadka dhibaatooyin ku dhaceen inay iyaguna dareemaan inay ka mid yihiin bulshada iyaguna waa muhiim taa macnaheedu waxaa weeye iyagoo oo kuwii dhirta geystay la dhibaatay kuwii dhirta ku dhacday wax loo qabto oo maaragtay si ay bulshada ula sinaadaan xooga saari doonaa xoriyatu qowlka anugu dadka aad u qoraan ahaan jiray xoriyatu qowlka iyo maaragtay jecel maanta marka inaan gruubkii noocaas ahaa aan xorriyaddooda usii kordhiyo ayaan diyaar u ahay qof kastaa innagu waxyaala dunida u naqaan dacaayad baa jira laakiin dunida kale industry ah lagu shaqaysto maraykanka iyo ingiriiska iyo qofku inuu madaxda faalleeyo oo dhaqankooda iyo muuqaalkooda iyo hadalkooda wax ka sheego lacag baa lagu hela waa industry dhan oo lagu shaqaysto innaga xaggeena waxaa layahay dacaayad baa layaa wada xidhaa aniga dacaayadka marka horta wixii dacaayadstayaalaha maanta xor baa tiina waxaa rabta marka hadli kartaan laba qodob baan la ogolayn oo sida qawaaniinta adduunka iyo waddankaba ah in qabaa'il la isku dhufto oo reer hebel ka kac oo reer hebel laa la yidaa waa la odhan karaa reer hebel baa waxbadsaday waxaas dhib male waa la odhan karaa mustaqbal meeshii yimid oo waxaa yaacaya reerkoodaa soo baxay waxaas dhib male laakiin reer hebel oo reer hebel ku duul incitement baa la iyadu waa qalad waxaa kaloo qalad wixii diinta iyo akhlaaqda ay diidayso sawirro qaawan aflagaato ay noocaas waa reebayi wixii intaa ka baxsan wax walba waa laga hadli karaa dastuurka etoobiya laga hadli karaa ma ogolin baa la odhan karaa dalkan ka mid yihiin baa la odhan karaa waxaa la odhan karaa muxuu ahaa madaxweynuhu waa saasaa la odhan karaa shaksiinta laga hadli karaa qofkii ay dambigiisu gaarsiiyo inuu dhaafo waxaa ku saabsan madaxweynaha iyo saaxiibadii iyo wasiirada isaga u taalla bulshada kaaga qabato dawladda u xakaman mayso bulshadaa qabanaysa laakiin dawladdu ma odhanayso sharti madaxweynaha isku xadgudubtay afrikaanka inta badan isku xidha waxaas marka madaxweynuhu dadku la mid yahay haddii adiga wax lagaa sheego maxamadaysa waa la xaman karaa taa horta inaad ogaataan dacaayadana adigaa idin bilaabaya marna inay ileeda haysta marna ina cabshad dadkii cagaha la-ayn indhaha la-ayn away odan